بسم الله الرحمن الرحيم isku soo noqod wacan waxaan sameynaynaa loogadan waxaa la yiraahdaa eHarmony eHarmony marka waxaa laga leeyahay dalkaas Mareykanka waa shirkad ama application ama website kaasoo marka laga isticmaalo dating website waaye meelaha website la isku shukaansado waaye sida application maalweed ay soo bandhigayeen oo kale guriga sama oo kale guurdoon marka sidaas oo kale kana waxa waaye application dating marka waxa isku dayaynaa loogada inaan sameeyno oo dib rebranding ama redrawing aan ku sameeyno marka waxaan leenahay marka koowaad waxa soo qaadanaysaa carfigan marka wuxuu ka fiican yahay paint toolka midkaan waa midka ka shaqeynayo kadib midkaan marka soo qaadato waxa leenahay meeshaan centerka ku dhufanaysaa kadibna xagasha qaybtan kale click siinaysaa oo soo jiidaysaa kadibna meeshaan marka imaado kale waxa leenahay double click marka shape-kan gudaha markuu ka soo galo waxa tagaysaa inta kadibna falaartana click siinaysaa uu ku bedelayaa size-ka iska yareynaysaa waxa ka dhigaysaa tusaale 25 cm kadib waxa imaanaysaa soo soco qaybta hadan waxa siisaa click markaas si xoogaa saan ku noqonaya oo qalinka daba socdo waxa leenahay double click hadana soco kadibna waxa tagaysaa meeshaan kala xagashan kale waxa leenahay double click kadibna waxa leenahay qaybta marka imaadid waxa leenahay click kadibna waxa leenahay marka inta imaadid waxa leenahay double click marka dhaad sidaas oo ku simaya selection toolka taabanayna marka waxaan rabnaa gudaha inaan sameeyno wax la yiraahdo line inaan ku kala barno waxaan sameynaynaa marka line marka ku kala barayno line-ka waa kana kadib line-ka waa kana meesha rabta u jeedin kartaa laakiin shift hadaa la qabato xagal marba xagal uu ku jeedinayo marka line-kaas aan rabnaa inaan isticmaalno waxaan leenahay kow noo soo qabo kadibna waxaa sameysaa noocaan oo kale nooga dhig kadib waxa leenahay stroke u sameey kadib waxa leenahay cabirkiisa yareey tusaale noocaas oo kale ka dhig kadib waxa leenahay midkaan isticmaalena waxa leenahay sidaan noogu leexi tusaale kadib meelaha camal noo keen haddana waxa qabanaynaa alt kadibna waa jiideynaa meeshaan kala geeninaa marka meesha camal marka geeno waxa sameynaynaa midkaan heelada saarayna labada xabo heelad marka saarno waxa leenahay right click dushiisa kadib waxa leenahay transform waxa ka dooranaynaa reflect waxa la yiraahdaa reflect marka dooratid automatic uu ku bedel marka okay hadaa dhahdid midkii meesha ku yaalo reflect ku sameynaa xagasha dhinaca kale ku leexina laakiin anaga waxa leenahay copy ka dhig kii hore hayaalo midkaan ay copy kadib waxa leenahay soo qaad horta waxa iska weysaa markasto smart guides inuu ku furan yahay smart object dhaho way smart guides waaye smart guides kan inuu on ku yahay si cabirada uu ku hagaajiyo hadda wajideena kadib waxa leenahay ku hagaaji midka kale okay kadib heelada wada saarayna waa taqaanaan hadeertan waxa la sameynayo shape builder ka dooro kadib line ka banaanka iska tireenaa alt qabo kadibna iska tir okay marka inta sameeyno hadda waxaan oo haray gudaha marka waxa u baahanaynaa color risk ina badbedelno bis color risk marka badbedelayno waxaan sameynaynaa marka hore dhammaan heelad garee kadib waxa tagtaa colorka tusaale kan oo kale iska dooro hadhow wuxuu ku sameynaa colorki dhan uu kugu wada daday laakiin waa badbedelin karnaa waxa sameynaynaa kana ku dhufanayna tusaale kadib waxa leenahay intimaw waxa doorataa eyedrop marka shortcut-kiisa waa i marka taabto isla marka qalinka ku soo baxay kadib waxa leenahay midka koowaad ku dhufo hadana selection toolka marka v taabanay midka kala dooro kadib hadana i taabo sidaas ku wad marka bobsi
marka sidaan colorkii waxaa sameynay waa keenay waa u ekeysiinay colorkii marka waxa u baahnaa hadda stroke inaan ka saarno waxaan sameynaynaa hadda tusaale waa kana stroke ku jiro marka stroke marka ka saaraysa xalana heelada saaraysa kadib meeshaan imaanaysa stroke waxa ku dhufanaysa double click leena ama click si kadibna calaamad istilaaf ku dhufo marka waxa laga yaabaa waxyaabo yar yar inay meelaan kaaga haraan soo dhaweey kanoo kale oo kaligaas inay iska tuuraysa kadib waa kana waxa noo sameysmay loogadii oo rasmiga ahayd kadib waxa sameynaysa qoraalkaas ku qoraysa marka intaas ku keenayna cashirkeena practicada badan hala sameeyo si toolska iyo tricks kala isticmaala aw barataan waa maasantiin wixii la fahmi waayo hadi soo weydiiyo waa inoo cashirka xiga